السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كدب بالكلام مقناشا وان اسوسو لابني halkii ayaan ka sii wadi doonnaa muuqaalladii aan soo gudbin jirnay mawduuceenna ugu horreeya siisanka saddexaad ama xilliga saddexaad ee ogaansho waxaan ku bilaabaynaa bartamaha qaaradda Afrika, Ruwaanda. markaan ka hadlayno Ruwaanda ma ahan in aan kuu soo gudbinayo macluumaadka aanan faa'iidada lahayn ee dadka qaar ka hadlaan markii ay soo gudbinayaan macluumo ku saabsan waddan sida meesha ay dhacdo, caasimadeeda, waddamada xuduudka la leh. macluumaadka noocaasoo kale waxaa lagu tilmaami karaa mid aanan faa'iido weyn lahayn. faa'iido muuqata kama helaysid inaan kuu sheego bedka, caasimadda, madaxweynaha Ruwaanda, laakiin waxaan kuu soo gudbinayaa tijaabooyin ay soo martay ama tijaabooyin ay samaysay Ruwaanda. waddan ahaan dambas iyo mayd, laakiin isu beddelay mid ka mida dhaqaalayaasha ugu kobcitaanka badan caalamka iyo qaaradda Afrika. ku soo dhowaada mawduuceenna maanta. Ruwaanda waa dawlad bad ahaan yar oo dhacda mandiqadda harooyinka waaweyn ee qaaradda Afrika. si aad u qiyaasta xajmigeeda bad ahaan, waxay bad ahaan isla eg yihiin gobolka Nugaal ee Soomaaliya oo weliba ka mida gobollada ugu badka yar dalka. waa waddan aanan lahayn baddu waa nimco aanan la soo koobi karin. qisooyinka xadaaradaha ee kala duwan waxaad arkaysaa in ay badaha agtooda ka dhasheen. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لتبتغوا من فضله تاسوا إن آد جنعسي إسلافستان أرنكاسو كالين كله هرمركا يدالشاد حضارتها. رواندا أيضاً بدلهين أي يقول وين حقيقي سي تاسو كدغن مادام أن هيسن حيب آدو دير إن آن هيسن فرصة كبضن ملايين مر midda ay haysato Ruwaanda. haddaan si toos ah u galno mawduuceenna, Ruwaanda waxaa dega laba qowmiyadood, Hutu iyo Tutsi. inta uuna imaanin gumaysiga reer Yurub waxay ku noolaayeen nabadgelyo iyo wada noolaasho. qofkii arkaa marna niyadiisa ma soo geli lahayn meeshaan ay ka dhici doontaa dagaal sokoy kan ugu xun taariikhda. waxaana xukumi jiray boqor lagu magacaabi jiray Mawawi ka hor imaanshiyaha gumaysiga Yurub. gumaysigii ugu horreeyay ee imaado wuxuu ahaa kan Jarmalka si uu xukunkiisa xididada ugu dhigo Ruwaanda. wuxuu Jarmalku gacan saar la yeeshay Tutsiga iyo boqorkoodii. kadibna waxaa Jarmalka uga dambeeyay Beljamka. kadib dagaalkii koobaad ee adduunka ayayna imaadeen. Beljamku waxay dhiseen nidaam ku salaysan kala soocidda Hutuga iyo Tutsiga, waxayna abuureen cadaawad aanan jirin ayagoo bud ahaan u adeegsaday Tutsiga si loo gumaado ama loo awood yareeyo Hutuga. haddaba Hutugu waxay aad u naceen xukunkii Beljamka iyo weliba walaalaha Tutsiga ee lagu diray. intaas kadib, maadaama gumaysigu kala jeclayn labada qowmiyadood maslaxadiisa keliyana uu fiirsanayo, si lama filaana ayuu Beljamka taageeradiisa ugu wareejiyey Hutuga. Tutsigana daaqadda ayuu ka tuuray. wax kastana Hutuga ayuu gacanta u geliyey, wuxuuna ka dhaadhiciyey in Tutsigu ayna ahayn Ruwaandees dhab ah. 1973 waxaa xukunka Ruwaanda la wareegay qaab afgembi ahaana nin lagu magacaabo Juvenal Habyarimana, wuxuuna sii huriyey nacaybka ka dhanka Tutsiga. xilligaas waddanka Uganda ee deriska la Ruwaanda waxaa ka socday is-abaabul iyo tababarro ay samaynayaan Tutsigii la cayriyey, waxayna aasaaseen jabhadda waddaniga ee Ruwaanda. haddaba 1991 markii ay isdhaheen wax waad iska celin kartaan ayay weerar ku qaadeen nidaamka Ruwaanda, laakiin waa la jebiyey waxaana la dilay hogaamiyahoodii Farid Rwejiyama. hoggaankana waxaa la wareegay nin lagu magacaabo Paul Kagame, madaxweynaha hadda talada haya waddanka Ruwaanda. Paul Kagame wuxuu isku dubiriday ciidankiisa wuxuuna af ka saaray caasimadda Kigali asagoo ka soo tallaabay xuduudka Uganda. ciidankiisu markii ay maraayeen daafaha Kigali ayaa waxaa soo farageliyay qadiyadda Ruwaanda qaramada midoobay, waxaana dhacay heshiis loogu magacdaray heshiiskii Osha. laakiin dadka ka ag dhow madaxweynaha Ruwaanda oo ah ninkii afgembiga 73 ku qabsaday oo Hutu ah ayaa diiday heshiiskaas, waxaana ka mid ah xaaskiisa Agatha. waxayna aasaastay idaacad loogu magacdaray Kunbur oo ujeedkeedu yahay in Hutuga lagu diro Tutsiga, waxayna adeegsan jirtay idaacaddu hadalla aad u xun sida in baranbare ee cayayaan lagu tilmaamo
tuutsiga idaacaddu waxay huutuuga ku boorin jirtay in ay sidii mayd uga fogaadaan tuutsiga ayna guursanin lana tacaamulin haddaba maadaama huutuuga talada hayo waxaa la hubeeyey oo la sameeyey maleeshiyaad badan gaar ahaan waxaa gacanta loo geliya hubka cad sida midiyaha masaaraha iyo tooreeyada iyo weliba hub kaloo caadiya waxaana waddo kasta lagu arkay maleeshiyaad hubaysan waana waddada ugu xun ee dawlad qaado si ay xukunkeeda u ilaashato in ay samaysato maleeshiyaad ciidanka ka madax bannaan 6 abriil 1994 waxaa qarxay dagaal sokoy kii ugu xumaa taariikhda kaasoo ka bilowday markii ay soo dhacday diyaaraddii madaxweynaha huutuuga oo aan soo sheegnay inuu 73 afgembi ku qabsaday shilkan ayuuna ku dhintay inkastoo aanan ilaa hadda la ogayn cidda soo riday ama sababtay u soo dhacday diyaaraddaas laakiin idaacaddii sidoo kale aan ka soo sheekaynaynay waxay dusha u saartay tuutsiga waxayna ku baaqday in la isirsifeeyo taasoo keentay in uu qarxo dagaal albaabada jaxiimada laysku furay la waayena cid xirto albaabkaas furan waxaa la bartilmaameedsaday tuutsiga iyo weliba huutuuga kuwa la tacaadufaya tuutsiga meydku sidii qashinkii ayaa meel laga mara la waayey dhinaca kale Paul Kagame wuxuu ku jiraa dhaqaajinta ciidankiisa wuxuuna gacanta mariyay caasimadda Kigali kadib 100 maalin bilowga gumaadka waxaana la dhisay xukuumad Paul Kagame wuxuu ka noqday madaxweyne ku xigeen haddaba huutuugii talada hayay ee xukunka waayay kadib geerida madaxweynahoodii iyo qabsashada Kagame iyo jabhadiisa wadaniga ee Rwanda kadib arrinkaas waxaa bilowday qax kale oo ay sameynayaan huutuuga malaayiin ayaga ayaa u cararay Zaire ama Koongada Dimuqraadiga ayagoo ka baqaayo aargoosashada tuutsiga Paul Kagame waxaa faraha ka baxay ammaanka dalkiina wuxuu isu bedelay raqwadareed taasoo keentay in madaxweynihii Bizimunga uu xukunka iskaga dago waxaana bedelay oo madaxweyne noqday ku-xigeenkiisii Paul Kagame halkan waxaa ka bilaaban doona fasal kale waxaa soo xirmi doona dhiig daadashada waxaana bilaaban doono casriga dhisidda qodobada horyaallay ee ugu xasaasisan ee xalka degdega uga baahnaa Paul Kagame waxay ahayd midaynta shacabka kala qaybsan kadib gumad wadareedkii dhacay iyo in shacabka laga siibo micyaha faqriga iyo macluusha tallaabooyinkii ugu horreeyay ee uu qaado waxay ahayd 1 in sanad walba la sameeyo baroor diiq lagu xusaayo malaayiinta gumaadka ku dhimatay in si wada jir ah loo xuso wixii dhacay si wada jir ahna looga murugoodo la ballan qaadana in aysan dib dambe u soo laaban doonin 2 wacyigelinta wuxuu ku dadaalay wacyigelinta dhalinyarada sida in iskuullada lagu dhigo maadooyin ka hadlayo foolxumada gumaadka iyo qabyaaladda iyo isfaquuqa iyo wanaagga gacmo isqabsiga iyo midowga waxaa laga dhaadhiciyay da'yarta in masiirkooda uu yahay hal mid in dadka Rwanda ku nool dhammaan ay sugayso hal masiir haddii ay hormaraan ay wada hormarayaan haddii musiibo dhacdana dhammaantood musiibadaas ku dhacayso in ay ka fogaadaan wax kasta oo soo celinayo wixii dhacay 1994 3 cadaaladda Kagame markuu xukunka qabtay waxay dawladdiisu xirtay 120,000 oo qof kuwii gumaadka geystay laakiin waxay maxkamaduhu ku akaadeen kaliya in la maxkamadeeyo madaxweyntii halka kumanaankii maleeshiyaadka la geeyay goobo xabsi u eg si looga dhaqo maskaxdooda wixii ay geysteen loona dhaqan celiyo si mujtamaca loogu diro ay noqdaan dad dabiici ah 4 si looga xuubsiibta dhammaan taariikhdii madoobeed ee Rwanda waxaa la bedelay calankii hore astaan cusub ayaana calanka loo sameeyay sidoo kale dastuur cusub ayaa la sameeyay oo mamnuucayo adeegsiga magacyada Hutu iyo Tutsi iyo dhammaan wax walba ku tusinayo cunsuriyad iyo kala faquuq Paul Kagame wuxuu ku guuleystay inuu xalliyo qodobkii ugu muhiimsanaa uguna adkaa ee ahaa heshiisiinta waxaa midoobay dadkii shalay isruugayay heshiisiinta kadib tallaabada hortaal Paul Kagame waa dhaqaalaha in kor loo qaado Kagame wuxuu magacaabay guddi dhaqaale oo hawshiisu tahay u safridda daafaha dunida si khibrad looga soo qaato wadamada yaryar ee dhaqaalahoodu kacay kadib dhibaato ay soo mareen sida Singapore tijaabooyinkii iyo khibraddii ay la soo laabteen guddigaas waxaa ka dhashay wax loogu magac daray aragtida 2020 ama 2020 aragtidan oo tobaneeyo qodob ka kooban
dhinacyo badanna taabanaysa, taasoo in ruwandeysku ay noqdaan ummad ku nool nolol karaama leh. tallaabooyinkaasuu qaaday Paul Kagame waxaa ka dhashay in dhaqaalaha Rwanda uu kor u kaco 3 mar 15 sano keliya, koritaan 8% ah sanadkii, taasoo ka dhigan dhaqaalayaasha ugu kobcitaanka badan Afrika iyo caalamka. Tirakoobyadu waxay leeyihiin 1 milyan oo Rwandeysa ayaa ka tallaabay khadka saboolnimada oo u gudbay dabaqada dhexe. xilligan Rwanda waxaa lagu sheegay inay tahay meelaha ugu fiican ee qofku uu ka aasaasa shirkad yar. sidoo kale Rwanda waxay noqotay dalka ugu badan qaaradda Afrika ee carruurtooda u dira iskoolada. mawduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay. fadlan hadduu ku cajab geliyay muuqaalkan like saar, commentigaada fiicanna aad ayuu noo dhiirigelinayaa. haddii aad muuqaalkan daawanayso oo aadan weli kanaalka ku soo biirin, fadlan subscribe kuna soo biir kanaalka. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.